siyaasiga ah la furaya inuu mowqifkayga aanu ka hadalno arrimahan taagan ee jiitamaya ee doorashooyinka horena waa looga hadlay haddana waxaad moodaa in weli ay isku soo taagantahay waddankana sharciyadiisa mar walba waa idhaahdaa haddii si ay tahay loo raaci waayo sharciyadda oo sharciyadda hawl walba waqtiga ay leedahay sharcigu u qoray la qaban waayo waxaa imika taagan ee jahawareeriya dadka oo meedhan baa imanaya oo maanta weliba kuwii sameeyey ee baadka ka ahaabaa weliba ugu kulkulul oo ugu wareer badan waxaan dii sheegaynaa waqtigan imika la isku hayo ee sharcigeenu ee law number 14 gudoomiyayaashii saxeexay baa diidan imika oo ka muransan nimanka waxa weeyaan ururadii waxa weeyaan waa sharcigii ay shalay ururada ku noqdeen ee xisbil xaakimkii udubo gaamure ay cirka u direen 60 bilood ee dambe teerabkooda 10 sanana horna waanu sheegnay imkan waanu sheegnaa annaga waanu la leenahay dastuur waxaana nasiinaya sharciga nasiinaya xaq baan u leenahay 9 sano iyo bar baanu daawanayno oo eegayno oo sugaynay 6 bilood waxaanad moodaa inaan weli u dhaadhacsanayn doorasho madaxtooyo oo 6 bilood ku jirtaana ma jirto ninkii la sharci baan u hayaa ee maxkamadaynu leenahay sharciga haddii la isku qabsadana maxkamadda dastuuriga ayaa kala saarta annagu go'aankii maxkamadda dastuuriga ay soo saartay baanu haysanaa ninkii meel kale u dhaafaya isaga jirtaa haddaan dee la ogolayn maxkamadda aan la aaminsanayna dee waa wax kale weliba dadkaa ku doodaya anagu uma haysto inay sharciga aanay aqoon way yaqaanaan laakiin waa ogaan laakiin waxaa idiin sheegayaa annagu marnaba xuquuqdeeda oon intaa sugaynay inaan cidna uga tanaasulayn waxaan idiin sheegaynaa dowladda wax kale isku qabsada laakiin ururada annaga idinku haysana annaga intaasoo sano sugaynay oo xaqna oo imika uma soo galay xaqeega marka waxa weeye war alla sharciga alla raaco la istixgeliyo haddii waqtiga joogi leedahay 20 sano joogteen 6 bilood waxay isu keeneen idinka sababka ah oo baadka ah oo maalin walba nin inta 3 sano ugu dartaan sharciga xaq kale u rogay oo dabeetana wuxuu oo dhammaan dhakada ma iska soo fogle kiiba hadana ma doonaysaa in si aad doontaan la idin ku dhigo aqbali man dowladdu hadday idin ku habrato mudaaharadada aydan sharciga oo soo marnay joogka dee kuwa weyn baan sameeyay annagu ka hadhimeen annagu waan soo kicin dadka iyaga war sharciyada la raaco oo dadka alla ixtiraamo oo laga daayo buuqa ma kari karaan abaar iyo sixir barar baa dhameeyay jijoobno cid waxba kuma heshay sharciga dowlad beennay intaasoo sano soo dhisin dee sharcigan ninka aan aaminsanayn wax ku doonaya si kale dee annagu ma garanno talabaad waxa weeye qolooyinkan dhexdhexaadinta anigoo sharaf idiin haya oo dad muddo kara oo dee weligoodba soo dhexdhexaadinaya wax badanna soo qabtay atiin laakiin waxyaabaha qaarkood dee inay naga duwaan ay naga burburiyaan sharciyadeennii iyo dalkeenni wax badan oo wanaagsan oo ku soo heshiiseen dad way jiraan laakiin anigu waxaan oran lahaa sharciyadda ayna dhaafin waddan sharciyadda waxa la isku hayaa waa sharciyad ee jagooyin la isku hayo sharciyadda dalka ay naga baabiinayaan haddii aad la gelayo aad cid dhexdhexaadinaysaana waxaan idiin sheegaynaa inaan baadkana oo stakeholderska ku jiro dowladda iskuma haysta ama nimankan ururada oo iskuma haysta ama 6 bilood iyo ururada furideeda waxay diideen waa ururada furidooda annaga doodayno
weel baaban imka u samaysan oo maalin walba aan hadlaynaa si oo hadlayaan baan u hadlayn waxaan rajaynayaa in ilaahay ina garasiiyo nimcadan ku jiro in ilaahay ina garasiiyo idinkana waxaan ka codsanayaa dadkiina wax dhexdhexaadinaya inkastoo wanaagsantay dhexdhexaadinta iyo sulux iyo wanaag iyo nabadayntu haddana dee wixii hore a soo dhisteen yay noqon mid sharciyadeeni aan dhisanayn naga kaxeeyo waxaad ku dhexdhexaadinaysaan dadka ta kale qodob baan doonayaa inaan ku daro halkaa muhiim oo ilaa bisha 14keedii doraad ka dhacay Kenya oo safaaradda Soomaaliya ay shir kaga baxday iyadoo ku doodaysa Somaliland baa lagu soo casuumay anu nimanka kun jeer horna waan sheegay anu dawladeenana waxaan kula talinayaa ay maalin kaaga qasaar in nimanka wada hadal iyo maxaa la yiraahdaa wada xaajoodiyo imankadana madaxweynaha cusub guddi dib u heshiisiin Soomaaliya oo ay sameysteen oo habeen dhaw shirayay waxa go'aan ku gaareen in hor loo sii wada hadalkii Soomaaliya iyo Somaliland wada hadal mid dhalayana maaha وفعلadaas maalin walba taaganaya man xasada kirshaq baa la yiraahdo horta ku faa'iideynaa xaasidnimada inta leega fara badan leh ay sameynayaan weeye waxaanu halkaa ku gaadhay inuu hore ugu soconay inuu uga duwanaan arrinka dawladda waxaan kula talinayaa inaanay maalin kaga qasaarin nimanka inay waqtigooda ku qasaariyaan waxaan ugu dambeyntii doonayaa inaan halkan uga mahadnaqo oo waliba ku dhiirigeliyo hawlaha wadannimada ay qabteen waxa weeyaan golaha wakiilada Soomaaliland oo dadka badankiisu haysto ama in ay wada macaarideen ama ay inkastoo intooda badan ay ka soo baxday xisbiyada macaaridka haddana muujiyay inay qarannimo u shaqaynayaan iyo wadannimo ee aanay xisbi dantii u shaqaynayn aad baan ugu hambalyeynaa waxaanan ugu rajaynaynaa in waxyaabaha u dhiman hortaagan doorashooyinka dalka inay socdaan inay sida ay taa hore u dhameeyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Wassalaamu calaykum.